inay ka dhacday buurtinle towfal aan loo dulqaadan karin muddaan fiirsanaynay waxaan u dulqaadan waayay duruufaha jira oo abaareed iyo dadka baaba'aya iyo duunyada iyo dulmiga iyo kutubashada ina dheereeya samaynayo halkaa waxaa lagu dejay guddigii oo taagan gudoomiye ku-xigeenkii oo taagan 200 oo qoys baa lagu dejiyey waxaana laga siiyay dadkii deegaanka 25 qoys inta kalena waxaa tagrifalay oo aqaatay oo ku tagrifashay sharci waxaan u leenahay dastuuriya in kalfadhiga markay 6 bilood ay dhamaato in la qabto waxaan codsanayaa 2 qodob inay dawladda dhex wax ka qabato in kalfadhiga aan helo musuqmaasuqa baaxsan inaan ninka wax lagu aamini karo ma ahe inta kalfadhiga ka horeysa inaan ummadda wax loogu dhiibin wafdi uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka degmada Buurtinle ee gobolka Nugaal iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada ayaa safar shaqo ku gaaray deegaano ka tirsan degmada Buurtinle kuwaas oo ay saameysay abaarta daran oo ka jirta deegaanadaasi waxaana wafdigu ay gaareen deegaanka Korbarwaaqo oo laga qaybinayay xilliga ay gaareen mas'uuliyiintaasi deeq raashin oo ka timid dawladda Imaaraadka Carabta degmadana ay soo gaarsiiyeen guddiga abaaraha heer Puntland dhanka kale wafdigan oo kormeeray deegaanka Korbarwaaqo iyo waxa la gaarsiiyay ayaa sheegay in deeqda la gaarsiiyay deegaanka Korbarwaaqo ee gaaraysa 25 qoys raashinkood halka 175 qoys raashinkoodna aan la aqoon meeshii la gaarsiiyay guddiga abaaraha degmada Buurtinle iyo gudoomiyaha degmada ayay ku eedeeyeen musuqmaasuq iyo isdoomarin ee ku sameeyeen raashinkaasi dadka masaakiinta loogu talagalay waa sida hadalku u dhigeen mas'uuliyiinta hogaaminaya gudoomiye ku-xigeenka degmadaasi ugu horeen waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah culimada deegaanka Korbarwaaqo waxayna xaqiijiyeen in la soo gaarsiiyay deegaanka 25 qoys raashinkood sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka degmada Buurtinle iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada waxay sheegeen in gudoomiyaha degmada iyo guddiga abaaraha degmada Buurtinle ku eedeeyeen musuqmaasuq iyo isdoomarin raashinkii degmada la keenay ay ku sameeyeen musuqmaasuq baasan sida ay sheegeen mas'uuliyiintaasi iyagoona si degdeg ah fariin ugu diray guddiga abaaraha heer Puntland wasaaradda arrimaha gudaha in ay la socdaan meelaha la gaarsiinayo raashinka in la gaarsiiyay dadka masaakiinta ah iyo in kale gudoomiye ku-xigeenka degmada Buurtinle oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha ay qabato kalfadhigii golaha deegaanka degmadaasi inta kalfadhiga laga gaarayana aan waxba loo dhiibin gudoomiyaha degmada iyo guddiga abaaraha heer degmo lagana rabo mas'uuliyiinta dawladda Puntland in iyagu gacantooda ku gaarsiiyaan dadka masaakiinta ah wixii loogu talagalay tan iyo saaka nus saac meeshaasaan fadhiyay waa lagu kala dareeray waxaan ka helayna ma jiraan meesha 14 sano baan deganaa oo degaan u lahaa waxaan Korbarwaaqo ka helayna ma jiraan waxay naga doonaan mooyadaydu wata waa qalalan tahay waa deganahay dad 20 qoys ku dhow baan deganahay waxaanu ka helayna ma jiraan qaal qaybinay tan iyo saaka waa joogay waxana hadda lagu kala dareeray waxba ka bixin waxa la igama siin waxay la hadlay iyo wixii jeedaashay midna ma jiro ka lugaynaya barkadaydina wata waa hango duunyo agab lana kama imaano baa baqtiya waxaan ka yimi te baahina saasay noo haysato wax loo dhiibayana dad muslimiinta garanayo oo wax kala yaqaan oo qofka shayibka iyo qofka baahan kala yaqaan waa inay wax noogu dhiibaan ay noogu dhiibin taajiro aan waxba kala ogeyn oo reerooda ku meersanaya magacaygu waa Cabdikaafi Maxamed Maxamuud kamida golaha deegaanka degmada Buurtinle waxaan rabaa inaan xog kooban siiyo degmada Buurtinle waxa ka jira musuqmaasuq aad u baan taasoo wada gudoomiyaha degmadu lama tashado golaha deegaanka guddiga abaaraha oo hadda uu sameeyay isaga lama tashado hadda tusaale ahaan Korbarwaaqaan joognaa maanta waxaa la keenay 200 oo qoys raashina xirta meesha degan waxa 25 baa leediin 25 oo haya gudoomiyaha oo gudoomiyaha waaya 175 kalena isaga keenay deegaanka ma arintaas waxaan rabnaa inaan ogeysiino guddiga abaaraha degmada Buurtinle way ogyihiin intii awal dad wuxuu shayb ahaa in badan oo fahmi weyday oo culimo iyo nabadoon isku jiraan cadaalad xumays markay arkeen bay iskaga baxeen inta kale wax ma weydiiyo go'aan buu soo qaataa xal waxaan ognahay markuu sheegay xal uu ka war heleen xoog xaalna 3 meelood baan ku qoraybay deegaamada Buurtinle waxa kale ilaa 8 deegaan oo si abaartu dhaxayaan la tagin baa jira waxba aan la geyn goolada ka mid ah laamay ku taal bal daariyaha ka mid ah misirta dawladda ka yaadaan baa ka mid ah dhaxtaal baa ka mid ah
dhismood koryaal waxaa ka mid ah ceel weynaha ka mid ah meel aan weli la tegin baa jira si deegaan u yimid xaarxaarka intaa inoo jirta islaamic relief aan weli imaan baa lagu qoray wax kaloo tegay male marka waxaanu rabnaa oo guddiga abaaraha ee puntland ogeyseena iyo wasaaradda gargaarkaba inaan cadaaladi ka jirin la fiirsan karin waxaa meesha ka jira dad islaamaan nahay bir rabadaan baa soo dhammaatay hadda maraykan wadda soona islaam baana beenka sheegi mayno xog dadkaa la waraysan kara deegaan wax lagu qiiminaya deegaanka waxaa la sheegay 150 ku qoran tahay ama 20 ama 15 bay ku yahay ama 25 kuwa ugu badan inta kalena gudoomiyaha keenay taa saxaafadii inuu caburiyo waxa ma sheegi kartaa isku dayaya dadkaas qaarkood waa laga soo gatay raashinka masaakiinta loo keenay qaarna isagaa soo qora oo soo qoray qaarna dad uu isagu laaluushayo ayuu siiyaa xildhibaanaan war ka hayn golo deegaan joogaan war ka hayn gudoomiye ku-xigeenkii degmada hadda nala jooga saaka ugu horreysay deegaankan maanta waxaa la keenay 200 oo qoys raashinkood waxaan ogaanay 200 oo qoys 175 gudoomiyaha waxa weeye u tashaday 25 dadka deegaanka la siiyay xilligan hadda lagu jiro waxaan ogsoonay in abaaro ba'an ay jiraan oo deegaanada Puntland deegaan dhaama u sijirinin deegaan dhaamana u sijirinin sidaas awgeedna iyadoo la rabay deegaanadii markii la kormeeray oo la tagay in deegaamada wixii haba yaraadaan wixii soo gaara in deegaamada loo teeleeyo la rabay halkii la rabay deegaamada in wixii loo teeleeyo oo sidii wax u gaari karaan dadka wax loo gaarsiiyo ninkii gudoomiyay waxaan fursad buu ka dhex arkay ganacsigoona ka bilaab oo hadda waxa marxaanti ah 200 oo qoys 25 ba dadka masaakiinta ku leeyihiin inta kale waxa weeyaan isaga u tashtay 25 ka midna si gaar u leeyahay dadka masaakiinta waxaan u sheegnaa guddiga abaaraha Puntland inaan dadkii wixii loogu talagalay aysan si sax u gaarinin guddiga buurtilana oo abaaraha waxa weeyaan dadkii wixii xil ka sahaa isaga baxeen dadkii nabadoonnadii iyo culimadii wixii wax garanayay markay arkeen ninkan sidoo wax ku wado dadka masaakiinta lugooyo ee dibdaabyada loogu geysanaya ay arkeen dabiirkoodu waa siin waaye waan isaga baxeen waxaan rabnaa marka guddiga abaaraha Puntland hadday ugu talagaleen waxaan dad masaakiin inay siiyaan inay dadka ay wax siinayaan ay u yimaadaan ay kormeeraan ay waxa ayagu gacanta ka saaraan ninkan mas'uuliyad qaadi kara gudoomiyaha ma ahan nin dadka xilligan adag lagu hadlay kara ma ahan waa nin baahan waxa la yiri nin bukanin baahan barax looguma dhiibo marka ninkan nin ummadan wax loogu dhiibi karay nin ummadan masiirkeeda loogu dhiibi kara ma ahan xilligan hadda aan joogno dadka isagu uu keensaday baabuurta ka wada buuxsay raashinka ku guranay waa la dareeray dadka masaakiinta meesha loogu yimidna meesha fadhiyaan wuxuu kale adeegsanaya oo isku dayaya inuu sameeyo dad kale oo baahan oo masaakiina oo uu soo waxba siino wax been u sheegay wuxuu dhahay saxaafad kale inta qabataan oo duubtaan wax tiraa wixii waana soo gaaray wax rasmi cid soo gaadhay iyo cid yimidna ma jirto marka waxaan sheegaynaa guddiga abaaraha Puntland iyo waxa weeyaan gobolka laftigiisa iyo wasaaradda arrimaha gudaha waxa buurtilna imaanaya inay ilgaar u yeeshaan oo ay fiiriyaan oo ninka aan dadka wax loogu dhiibin haddii waxa weeye guddiga abaaraha Puntland ayagoo fariintayada ay soo gaadhay annagoo isugu jira xildhibaanadii golaha deegaanka iyo gudoomiye ku-xigeenkii iyo waxa weeye dadka deegaanka isugu jira oo dad hore ay u hadleen dhibaatada jira ay hore hayeen cabashada hayeen hadday guddigu sii dhiibaan waxa weeyaan ay arinta maanta dhacday mid kale ugu sii daraa u dhiibaan waxay noqonaysaa asagii ninkaas ku mid bay noqonaya guddiga waxaan ku ognahay rag culimo dad odayaal oo muxtarima oo culimo ku jira ninkaas mardama dadka wax ugu dhiibaan wixii hadda maanta uu baasan kara waa baasada iyo wuxuu qaadan karay waxa haray iyo deegaamada haray ninka ayaan dadka wax loogu dhiibin oo laga ilaaliyo golo deegaan baa la shaqeyn xildhibaana waxaan la shaqeyn xogayaan la shaqeyn gudoomiye ku-xigeen baa la shaqeyn oday iyo muxtarim iyo cid wax garanaysa cid la shaqeysa ninka ma jirto waa kaligiis waa ninka iska orday kaliya wax iska haabanaya marka waxaan u sheegaynaa ninka dadka ha ku hadlaynina waxa weeyaan waxna ugu dhiibina hadaa wax ugu talagashay dadka u keeno siiya oo u qaybiya anagoo ah gurihii deegaanka degmada Buurtile meeshan waxa naga soo gaaray cabasho balaaran baa naga soo gaadhay sida awgeed baan u tagnay marka waxa ka jira meeshan cadaalad darro ka jira arintaas oo waxa weeye meesha hadda qoonda yar oo loogu talagalay oo 200 oo deegaanka ahayd oo deegaanka laga dhigay in deegaanka la siiyay 25 175 kalena ay meel kale aaday marka arintaas waxaan u sheegnaa guddiga Puntland abaaraha arintaas si cadaalad inaysan u gaarin wax cadaalad aysan ka jirin meeshan waxa weeye arinta marka inay sida ay tahay guddiga waxaan ku niman odayaal inay yihiin oo cadaalad ka shaqeeyaan ku dhacayaan jeeb gaar ay ku dhacayaan iyo dana gaar ay ku dhacayaan waxaan ogeysiinaynaa inay arinta ay tahay meesha wax ka jira cadaalad darro ay tahay marka intaasaan ogeysiinaynaa cabasha naga soo gaaray deegaanka waxa weeye wixii deegaanka loogu talagalay waxaan ahayn waxa weeye inay sameeyeen oo deegaankaasna la keenay 200 qof oo deegaanka laga keenay sidaan xogta nagu soo gaaraysayna
gudoomiyaha si gaar ah inuu arrinta u maamulay 200 deegaankana waxa weeye marka la keenay oo marka 125 waxa weeye ay sida deegaanku inoo cadeeyeen inuu la yimid 5 deegaanka la siiyay kol hadda aan u cabasho ma jidee guddiga Puntland oo abaaraha waxaan u sheegaynaa arrinta inaysan wax cadaalad aysan ka jirin cadaalad aysan ka jirin arrinta waxa weeye maanta arrinta way dhacday waxay ahayd way dhacday kuwa dambe hadda maanta la qaybay bari wixii la qaybay deegaanada sida saxa deegaanada in loo siiyo waa in ninka mas'uuliyad ma qaadi karo guddiga la shaqeynaya waliba gudoomiyaha gobolkana waxa weeye waa nin oday weeye marka waxaan leenahay oo la socda waliba guddiga la shaqeynaya iyo cid kale mas'uuliyiinta oo arrinta ka shaqeynaysa waxaan u baahanahay in buurtile cadaalad hesho oo sida maartay wax ugu fiican yihiin deegaanada waxa weeye loo kala qoondeeyo sida u kala baahi badan yihiin xilli abaaraha jidha xaaladooda lagama sheekeyn karo marka laakiin wixii macnaha abaaraha jiray hadii qaabad kale looga dhex faa'iideysto oo waxa weeye ganacsi laga dhex arko waxaan u arkaa inay cadaalad darro tahay saaka waxaan kormeer ku nimi kurbarwaaqo haddii aan ogeyn cadaalad darrada iyo maamul xumada ka jirta degmada anigu waxaan ay gudoomiye ku-xigeenkii waxa samafal ku yimi ama waxa deegaanka shaqadiisu tahay gudoomiyuhu sharciga waa ku tuntay kaligii taliyuu ku wataa dhammaanna wuxuu tagrifalayaa awoodihii ay nidaamka dawladnimo ka xaaraansanaa ayuu isticmaalay cadaalad darradu waxay maraysaa deegaamo 7 hadda ilaa 8 sidii naloo doortay inaan kormeer tegin wax loo geeyay iska daayay abaaraha ka taagan maantana waad ogtihiin Puntland oo meel walba baahida mid biyood iyo mid baad sida yihiin dad iyo duunyo xaalufka ka taagan waad ogtihiin waxaan ogeysiinayaa dawladda Puntland golaheeda sare madaxweynaha baarlamaanka guddiga abaaraha ee Puntland iyo gobolka waxaan ogeysiinayaa inay ka dhacday buurtinle towfal aan loo dulqaadan karin muddaan fiirsanaynay hadda ka hor mar baan cabasho geeyey qodobaysan wax lagama qaban mana aysan gaarin baarlamaanka iyo golaha sare ma gaarin jidka baa layga qabsaday ma lamana gudbin maanta iyo maantaan shaqada bilow inta ka dhexleh ku tumasho sharci baa ina dheereeyo waday maanta waxaan u dulqaadan waayay duufaha jira oo abaareed iyo dadka baabaaya iyo duunyada iyo dulmiga iyo ku tumashada ina dheereeyo samaynayo halkaa waxaa lagu dajay guddigii oo taagan gudoomiye ku-xigeenkii oo taagan 200 oo qoys baa lagu dajiyey waxaana laga siiyay dadkii deegaanka 25 qoys inta kalena waxaa tagrifalay oo aqaatay oo ku tagrifashay ina dheereeye waxa idin cadayn idinku tahay inaysan wax cadaalad inta markii iyagoo guddigii abaaraha iyo dul taagan yihiin gumaratoori dul taagan inta markuu sameeyay markii laga maqay maxaad nalaynaysaa waxaan ilaahay horti ka cadeynaya anoo gudoomiye ku-xigeenkii degmada meeshaan dulmi foolxun oo waxaan ilaahayna ku raali noqon karin ummadda islaamka ay ku raali noqon karin inay ka dhaceen waxaan madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo golaha wasiirada sharci waxaan u leenahay dastuuriya in kalfadhiga markay 6 bilood ay dhamaato in la qabto kalfadhiga hadda inta muddo dhaafay waad garanaysaan rabadaan baa awal lagu cudadaaray rabadaanku waa dhamaaday waxaan codsanayaa 2 qodob inay dawladda dhex wax ka qabato in kalfadhiga aan helo musuqmaasuqa baaxsan inaan ninka wax lagu aamini karo maahe inta kalfadhiga ka horeysa inaan ummadda wax loogu dhiibin waxaan kaloo idin cadeynayaa guddiga uu magacaabay waa dad uu xushay intii uu ku khaldamay oo dad islaam wax garanaysa ahayd way iska cashishay musuqmaasuqay kula shaqeynayaan waxaan kaloo idin cadeynayaa saxaafadda inuu caburiyo ku talagalay